xilli lagu jiro gudaha bisha Ramadaan ayaa waxa ka day roobab mahiigaan gobolka Sanaag deegaana ka tirsan haddaba toga buraan oo ay biyuhu marayaan ayaa waxa xalayto fiidkii ka day roob mahiigaan muddo saacado ah halkaasi ka daayay roobabka ka day gobolka Sanaag iyo Highland ayaa meelo badan ka daayay oo ka tirsan tahay nawaaxiga degmada Dhahar Baran Midgale Cawsane Habar Shiro Ceelbo iyo meelo kale waxna biyahan alka qulqulaya ay ka yimaadeen deegaano badan oo miyiga magaalada Buraan iyo nawaaxiga Soolasha Balbusle iyada guud ahaan jawigu maanta uu yahay mid barwaaqa tani waxay noqonaysaa mid ku soo aadaysa xilli Ramadaan dadku ay sooman yihiin iyada dhowrkii casho ay u dhameysteen oo kuleel dareen ka jiray deegaanadaas iyo guud ahaan meelo ka mid ah gobolada dalkeena Soomaaliya biyahan waxay soo dhaceen xalay saq dhexe waxaana ay soconayeen ilaa Saak waa togi buraan oo ay qulqulayaan waxaan ilaahay u mahadnaqaynaa subhanahu wa ta'ala rahmadda magaalada Buraan iyo adduunka caam ahaan iyo lagu sheegay oo qabatay waado caam ah iyo qabatay waana wax alle loogu mahadceliyo alle subhanahu wa ta'ala hadii loogu fidiyo oo loogu mahadceliyo inuu siyaadiya ummadda Soomaaliyeed meesha jooga waxaan ku dardaarmaya inay rahmadda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu siiyay fiidiyaan dalkii hooyo roobku da'ayay dani la daan daad celiyay dalkii hooyo roobku da'ayay dani la daan daad celiyay dadkuna xamdiyo u damarsaydhay dadkuna heeso naqdoodaha dalkii hooyo roobku da'ayay dani la daan daad celiyay dalkii hooyo roobku da'ayay dani la daan